Folks, let me close with this. I know I'm not a young man. madaxdu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hogaaminta iyo horumarinta bulshooyinka ay matalaan. Da'da madaxda ayaana mararka qaar saameyn ku yeelata habka hogaamintooda iyo go'aanada ay gaaraan. Qaar ka mid ah madaxda ayaa xilka qabta iyagoo daayira, halka kuwa kalena ay xilka qabtaan xilliga ay da' ahaan weyn. Joe Biden wuxuu ka tanaasulay hamigiisii ahaa inuu mar kale u tartamo jagada ugu sareysa Mareykanka sababo la xiriira da'diisa. Haddii uusan Biden ka tanaasuli lahayn tartanka, waxaa qormi lahayd taariikh cusub, waxaana kursiga ugu sareeya ku tartami lahaayeen labada musharax ee ugu da'da weyn ee abid u tartamaan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Biden oo jira 81 sano iyo Trump oo isna ah 78 jir, waxaana labadooduba da'da dhexdhexaadka ah ee madaxda caalamka ka weyn yihiin 16 sano. madaxda caalamka bulshada ay xukumaan waa kuwa intooda badan ka weyn marka la eego bulshada da'deeda dhexdhexaadka ah. shacabka da'dooda dhexdhexaadka ah madaxdu intooda badan waa ay ka weyn yihiin, sababo badan ayaana loo aaneeyaa. dalalka dimuqraadiga ah dadka madaxda ka noqda waa kuwa laga doonayo inay ololo badan sameeyaan isla markaana ay kasbadaan khibrad. ismuujintaasina waqti badan ayay ka qaadataa ilaa ay ugu dambeyn xilka qabtaan ayagoo daaweyn. marka la eegana dalalka aan dimuqraadiga ahayn, hogaamiyaashoodu muddo dheer ayay ku nagaadaan xilka. sidaasi daraaddeedna madaxda caalamka intooda badan waa kuwa da' ahaan ka weyn da'da dhexdhexaadka ah ee shacabka ay xukumaan. da'da dhexdhexaadka ah ee madaxda caalamka waa 62 sano, halka dadweynaha caalamka da'dooda dhexdhexaadka ay tahay 30 sano. dal walbana bulshadiisu waa mid leh da' dhexdhexaad ah oo u gaar ah. dalalkuna arrinkan waa ku kala duwan yihiin. tusaale, da'da dhexdhexaadka ah ee dalka Morocco waa 54 sano, halka dadweynaha dalka Niger da'dooda dhexdhexaadka ay tahay 15 sano oo kaliya. dalka la dariska ah Niger ee lagu magacaabo Burkina Faso waxaa madaxweyne ka ah Ibrahim Traoré, oo loo aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha ugu da'da yar caalamka. waa 36 jir dhashay 1988, wuxuuna si weyn u soo shacbaxay kadib markii uu hogaamiyey afgambi military oo dhacay bishii September 2022, kaas oo uu meesha uga saaray madaxweynihii markaas talada hayay Paul Henry. Afrika kaliya lagama helo hogaamiyaha ugu da'da yar caalamka, ee sidoo kalena waxaa laga helaa midka ugu da'da weyn, waana madaxweynaha dalka Cameroon ee lagu magacaabo Paul Biya, kaas oo ah 91 jir. wuxuu dhashay sanadkii 1933, wuxuuna xilka hayaa tan iyo 1982. xitaa ka hor inta uusan madaxweynaha dalka uusan noqon, wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1982. dalka Cameroon waa dalka gaabka ama farqiga ugu weyn haysta marka la eego da'da dhexdhexaadka dadweynaha iyo madaxweynaha. madaxweynaha dalka waa 91 jir, halka da'da dhexe ee dadka dalkana tahay 17 sano. waxaa jiraan hogaamiyaal ka da'yar da'da dhexdhexaadka ah ee dadkooda, sida madaxweynaha Montenegro Jacob Milatovic oo ah 37 jir, iyo ra'iisul wasaaraha Ireland Simon Harris oo isna 37 jir ah. dalka Talyaaniga waa dalka saddexaad marka la eego dalalka ay hogaamiyaashoodu ka da'yar yihiin da'da dhexdhexaadka ah ee dadkooda, waxaana dalkan ka ra'iisul wasaare ah Giorgia Meloni oo jirta 47 sano. wuxuuna Talyaanigu ku jiraa dalalka ay da'doodu dhexdhexaadka ah ee sareyso. da'da dhexe ee Talyaanigana waa 48 sano. wuxuuna dalkan sidoo kale ka mid yahay dalalka dadkiisu gaboobayaan ee burburka bulsho ka cabsida qaba. dalalka qaar ee Yurub farqi weyn uma dhaxeeyo da'da dadweynaha iyo madaxda. tusaale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waa 46 jir. sidoo kale da'dan waxaa jirta ra'iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen. Yurub waxay u muuqataa mid fursad siinaysa dadka ka yar da'da dhexdhexaadka ah ee madaxda caalamka. sababtuna waa in aysan siyaasadda u sii afduubnaan doonin xisbiyada gaamuray ee caanka ah. waxaana dhacda in shakhsi uu dhowaan aasaaso xisbi kadibna uu ku guuleysto doorashada asigoon cabqari ahayn. siyaasadda Mareykanka waa mid u qaabaysan soona dhaweysa kaliya kuwa waaya aragga ah ee muddada dheer ku jiray siyaasadda. madaxweynihii ugu da'da yaraa ee soo marana waa Theodore Roosevelt oo 42 jir asigoo ah xafiiska la wareegay. madaxda ayagoo aan aad u daaweynayn ama xilliga howlgabka aan gaarin ee xilka qabteenna waxaa ka mid ah Barack Obama oo 47 jir asigoo ah xilka loo caleemo saaray. madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka soo maraa waa madaxweynaha haatan ee Mareykanka ee Joe Biden.
oo xafiiska la wareegay asigoo 78 jir ah. 3 sano oo kaliya ayuu ka weyn yahay madaxweynihii ka horeeyay ee Trump, laakiin waa mid fiisikaal ahaan iyo awoodiisa galasho aad loo dhaliilay kadib dhowr jeer oo uu muujiyay inay daadu hayso. Biden wuxuu booska u baneeyay Kamala Harris oo 22 sano ka yar, wuxuuna tilmaamay inay wajihi doonto Trump oo ay ka yar tahay 19 sano. waxaana xusid mudan in qof dumar ah aysan weligeed Mareykanka madaxweyne ka noqon. How would you say your mental focus is? Which focused? Warbaahinta iyo siyaasadda Mareykanka dhawaan daadu waxay ka noqotay mid xasaasi ah oo aad loo hadalhayo, wuxuuna Trump in badan ku dhaliilay Biden inuu aad u gaboobay. Joe Biden 1973 wuxuu noqday senatarkii ugu daada yaraa ee taariikhda Mareykanka, laakiin maanta waa madaxweynaha ugu daada weyn ee Mareykanka soo mara. wiilkii ugu yaraa senatarada Mareykankana kolkaan da' baa ka reebtay tartanka doorasho. Afrika waa halka uu farqiga ugu weyn ka jiro marka la eego dadweynaha iyo madaxda, oo Afrika waa qaaradda ugu daada yar dad ahaan, sidaas oo ay tahayna waxay la saaxiib tahay madax kursiga ku raatay sida madaxweynaha Cameroon Paul Biya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Denis Sassou, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, iyo madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obiang oo xilka haya tan iyo 1979. wiilkiisa ayuuna u diyaarinayaa kursiga oo uu u magacaabay xilka madaxweyne ku-xigeenka dalka. madaxda kale ee Afrika ee da ahaanta aadka u weyn waxaa ka mid ah madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara, madaxweynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo, iyo madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune. marka laga yimaado Ibrahim Traoré oo ah hogaamiyaha ugu daada yar caalamka, sidoo kale Afrika waxay 4 sano ee la soo dhaafay soo saartay hogaamiyaal dhanka militariga ka yimid oo daada dhexdhexaadka ah ee madaxda caalamka aad uga yar, sida madaxweynaha Chad Mohamed Deby, madaxweynaha Mali Assimi Goïta, iyo madaxweynaha Guinea Mamadi Doumbouya. madaxda kale ee Afrika ee daada dhexdhexaadka ah ee hogaamiyaasha caalamka ka yar waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Senegal Bassirou Diomaye Faye oo xilka loo dhaariyay 2 Abriil ee sanadkan, wuxuuna noqday hogaamiyaha ugu daada yar ee Afrika soo mara ee cod dadweyne xilka ku hela.